السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دواad casharadeenii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Python ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. Casharkeena maanta waxaan ku baran doonaa haduu logical operators. Waxaan soo aragnay so far selectionski iyo conditionski marka arkaynay conditions kooban ama simple conditions wax la yiraahdo. Waxaan mararka qaar hal su'aal ay isweydiinayna inta soo aragnay. Waxa laakiin mararka qaar aan u baahanaynaa inaan isweydiin karno more than one question meeshii aan dhahay grade kuma ka badan yahay intaas mararka qaar waxaan u baahan karaa inaan dhaho waxaas ma dhaceen waxaasna ma dhaceen hal su'aal ka badan in aan abuurno ayaa laga yaabaa inaan u baahano marka waxaa la dhahaa complex conditions ayaan u baahnaan karnaa ama compound boolean expressions haddii aan rabno inaan abuurno waa inaan helno qaab aan isugu combine garayno more than one condition complex boolean expressions ay noo suurtageliyaan logical operators in ay noo abuuraan tusaale ayaan ka bixin doonaa laakiin intaan tusaale ka bixin saddex nooc oo operators ay Python isticmaashaa for logical operators operator koowaad waxaa la dhahaa an operator ama an logical operator an waxaa loo isticmaalaa in la isku combine gareeyo laba condition haddii aad rabto labaduba inay true noqdaan marka aragtida aad jeegarayso ayaa an la isticmaalaa kanna ma dhacay an sida Englishka ay tahay waa hebel ma dhaceen waa hebelna ma dhaceen laba shay haddii la helo ayay an ay true ku siin doontaa waxaa kaloo la isticmaalaa operatorka labaad or operator or waxa iyadana ay true ku siin doontaa labadii condition mid ka mid ah haddii uu true noqdo labadii su'aal mid ka mid ah haddii la helo waxaasna ma dhaceen meeshii hore ay ahayd waxay noqonayaan waxaas ma dhaceen ama waxaas ma dhaceen oo kale labadan waxay qaataan an iyo or iyagu mid walba wuxuu qaataa laba condition ayuu qaataa waa binary ayaa la dhahaa iyaga binary operators waaye laba condition ayay qaataan kan ugu dambeeyo not operator ayaa la dhahaa not isagu waa unary operator waa calaamad qaadanayso hal conditionkaas resultigiisa haddii true ahaydna false ay ka dhigaysaa haddii false ahaydna true ayay ka dhigaysaa iyada labada kale ay aad u isticmaal badan hal tusaale ayaan bixinayaa oo soo koobayo labada xabo soo koobayo waxa ka soo qaadaa waxaan rabaa inaan tijaabiyo 5 iyo 2 number ku siin doonaa numberkaas ma u qaybsamaa 5 iyo 2 inaan tijaabiyo kale ayaan rabaa waxaan leeyahay tusaale halkan x is equal to number iska qoraynaa 10 leh waxaan rabaa marka inaan fiiriyo 10 ma u qaybsantaa 5 iyo 2 labadaba ma u qaybsantaa mid ka mid ah ma u qaybsantaa labadooda ma u qaybsantaa miya inaan u kala saaro oo kale ayaan rabaa inaan ka faa'iideysanayo operatorskii aan hadda ka sheekaynay waxaan dhihi lahaa halkan sidaan oo kale if x modulus markaan raba lambar ma u qaybsamaa waxaan hore u soo aragnay calaamadda moduluska ama reminderka waxay noo suurtagelinaysaa lambar hadduu lambar u qaybsamo macnaheedu waxa waaye haraagiisa eber ah waa marka haddaan dhaho if x modulus 5 equals 0 x markii loo qaybiyo 5 haraagu eber ma yahay haraagu eber yahay macnaheedu maxaa waaye way isku dhamaatay way isu qaybsamaa oo waxba soo ma harin waxa la halkan an bayta marka si caadi ah u qornaa sida dabcan aan aragnay an iyo or iyo not sidaan u qornaa waxa la an x modulus 2 equals 0 x haddii loo qaybiyo 5 iyo haddii loo qaybiyo 2 labadaba eber ma tahay oo haraagu eber ma noqonaya haddii isku dhamaanayaan way haddii isku dhamaanayaan waxaa dhahdaa x oo ah numberkii la siiyey is divisible wuxuu u qaybsamaa for both 5 and 2 x labadaba way u qaybsantaa ayaan leeyahay halkan waxaan leeyahay halkan elif haddii kaloo sidaas xaaladu aan ahayn x meeshii aan dhahay labadaba ma u qaybsantaa waxaan leeyahay markan mid ka mid ah ma u qaybsantaa waa iska soo koobaysanaya dabcan laakiin adigu waa qori doontaa x ma u qaybsantaa 5 or ayaan halkan leeyahay ama ma u qaybsantaa 2 haddii labadooda mid u qaybsantana waxaan leeyahay is divisible for meeshii both aan dhahay waxaan leeyahay either 5 or 2 mid ka mid labadoodii ay u qaybsantaa haddii labada condition hore la waayo waxaan leeyahay labadoodaba uma qaybsanto
ayaan soo daabac leeyahay markaan waxaan leeyahay waxaa soo daabacdaa labadaba uma qaybsanto x is not divisible aan leeyahay markaan x uma qaybsanto for any of 5 and 2 it's not divisible for both darba dhigi kara for both for both 5 and 2 saddex xaaladood isticmaalay waxaan marka hore fiiriyay x ma u qaybsantaa labadoodaba labadooda haday u qaybsanto way u qaybsataa mid ka mid ah ma u qaybsantaa labadaba uma qaybsanto haddii aan dhaho halkan execute ama run wuxuu dhahay 10 is divisible for both 5 and 2 10 u qaybsataa labadaba 10 loo qaybiyay 5 waa dabcan laba loo helisaa 10 loo qaybiyay labana 5 u helisaa wax kale aan ka dhigo tusaale ahaan waxaan leeyahay halkan tusaale ahaan 5 iyo 10 5 u qaybsataa waa ognahay laakiin laba u qaybsataa tan marka waa false halkaan oo imaanayaa ma u qaybsataa 5 haa tan ma u qaybsantaa maya labadooda mid ka mid ah la helay or maadaama ay tahay kan ayaa la fulin doonaa dhexe sida aan rajaynayno wuxuu ku leeyahay 15 is divisible for either 5 and 2 and meeshan aan or ka dhigo for or to waxaan leeyahay for 5 either 5 or 2 si macnuhu isu kay keeno 5 or 2 mid ka mid ah labadooda u qaybsataa haddii aan bedelo qiimahan oo 15 aan ka dhigay waxaan leeyahay 8 5 ma u qaybsataa maya kan marka waa false kana 5 ma u qaybsataa maya laba ma u qaybsataa haa mid ka mid ah u qaybsantaa mid haddii la helo orta waxaan naqaanaa waa okay soma 8 waxay u qaybsantaa mid ka mid ah labadoodii waxaa la siiyey statementiga labaad ayaa la siiyey haddii aan ka dhiga dhan kale 81 maxaa dhacayo 81 ma u qaybsataa 5 maya ma u qaybsataa 2 maya tan hore waa laga soo boodaya 5 ma u qaybsataa maya laba ma u qaybsataa maya tanna waa laga soo boodaya tan goormee la fulin lahaa labadaba haddii la helo tanna goormee la fulin lahaa mid ka mid ah haddii la helo marka labadaba waa la waayay tan saddexaad ayaa la fulinayaa oo automatically else ayaa la fulin doonaa haddii aan execute dhaho 81 is not divisible for both 5 and 2 maagan macnaha waa laga yaabaa inuu qaldan yahay for either 5 or 2 waa dhihi kartaa labadaba uma qaybsanto ama mid ka mid ah uma qaybsanto marka wuxuu ku tusayaa calaamadahan logical operators labadaan dabcan ugu caansan an iyo orta ayaa aad loo isticmaalaa not iyadu wixii aad siiso una ay cagsi ka dhigaysaa laakiin an waxay true noqonaysaa markii labada conditionba ay true noqdaan orna waxay true noqonaysaa mid ka mid ah labada hadduu noqdo hadduu labada ay noqdaan dabcan waa okay laakiin mid ka mid ah ayaa loo isticmaalaa sidaan kale markaa u qorto waxaa laga yaabaa xoogaa inay formattingku inuu xoogaa kaa qaldamo oo wixii isdhex galaan si ay u kala baxsan yihiin la waayo sidaan oo kale ayaad samayn kartaa haddii aad rabto brackets ayaad isticmaali kartaa si aad u kala xirxirto ama ay kugu quruxsanaadaan marka waa just waa iska formatting qasab maahan sida aan aragnay wuu shaqaynayaa programkii syntaxka kuma xirno haddii aad rabto laakiin si ay clear kugu noqoto sidaan ayaa ila quruxsan logical operators sidaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyagana waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh